Soo dhawaada muuqaal kale cusub. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa aflagaadadii uu u geystay Emmanuel Macron, madaxweynaha dalka Faransiiska, suubanaheena Mohamed sallallahu alayhi wasallam, iyo falcelintii ay ka falceliyeen iyo jawaabihii ay ka baxsheen ummadda Islaamka ee ku nool dunida daafeeda kala duwan. Iyo waxaan kaloo aan ku qaadaa dhigi doonaa waa maxay sababta keentay in Emmanuel Macron uu aflagaadeeyo xabiibkeena Mohamed sallallahu alayhi wasallam. Waxaa la soo sheegayaa asbaabaha ugu badan ee keentay in Emmanuel Macron uu taageero in la sii faafiyo sawirka laga tarjumayo suubanaheena Mohamed sallallahu alayhi wasallam ay sameeyeen gaalada Faransiiska ayaa in ciidamada Turkiga ay aad u burburiyeen diyaaradihii Faransiiska dagaalkii ka socday dalkaasi Azerbaijan kadib markii cagta mariyeen ciidamada Turkiga diyaaradihii ay wateen ciidanka Faransiiska. Carada halkaas uu ka soo qaaday Emmanuel Macron ayaa keentay in Islaamkii xiqdigii xasilnimada u qabay in banaanka u dhammaan muslimiinta ku nool dunida daafeeda kala duwan ayaa si kala duwan uga soo horjeestay ficilkii uu sameeyay madaxweynaha dalka Faransiiska. Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa ugu baaqay shacabweynihiisa ku nool dalka Turkiga iyo dunida daafeeda kala duwan in ay u jaraan xiriirka ay la leeyihiin dalka Faransiiska. Sidoo kale madaxweynaha Turkiga wuxuu ballan qaaday in badeecada Faransiiska uu dhinaca kalena xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United iyo xulka dalka qaranka Faransiiska Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inuu ka fariistay u ciyaarista xulka dalka qaranka Faransiiska kadib markii Emmanuel Macron, madaxweynaha dalka Faransa, uu aflagaadeeyay diinta Islaamka. 27 jirkan ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu aad kaga xumaaday weerar ay Islaamku fuliyeen kaasoo lagu dilay Betty oo ahaa macallin farshaxaniste ah. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ku tilmaamay weerarkaas weerar argagixiso ah kaasoo ka careysiisay xidiga dalka Faransiiska u dhashay Pogba. Betty ayaa la guddoonsiiyay French Legion Honor oo ah Faransiiska ugu sarreeya farshaxanistaha. Betty oo ah macallin iskuul kaasoo sorgaan ku ka sameeyay suubanaheena Mohamed sallallahu alayhi wasallam ayaa la dilay isagoo si boqolaya iskuul uu wax ka dhigo kaasoo ku yaala meel 40 kiiloomitir u jirta caasimadda dalka Faransiiska ee Paris oo lagu magacaabo Conference Center Honoria. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa ku dooday in macallinkii la dilay ee Betty uu isku dayay inuu sharaxo muhiimadda xorriyatul qowlka